كعصنايا من أجل الله تعالى وإن المسؤول وها بلشدان وخدميناي وحبا laga tirsan karaa ilaahay dartiis waxaan ku weydiisanayaa inaad iska cafisaan qof kasta oo wax ka tabanayay inuu ilaahay dartiis u cafiyo ayna ka codsanayo mas-uuliyiinta shacabka ummadda Soomaaliyeed qof walba intaas ay ilaahay dartiis uga codsanayo qodobka labaad ee xiga qof allaale oo qofkii macallin Maxamed Ibraahim Deyn ku leh ويو قرآن ديمه لغلها إن وحوها تحدر بدن ويو قري عدة أنا نوجين وشيء نيسا دين كاسي دين مدينة قف كلو إلى معلم محمد الغمرة غير معلم محمد الغمرة ويرشوا عليه قبل أوضاع الغمرة أنا جا أحمد معلم محمد إبراهيم اللي يقول لي هي ثلاثة أفغانستان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا. ما أنت ومرحوم الله ونحرست عن لنا قف والبنا وحلقة يا وين لبض قف عرب كودا إسقادة ضبان هاي وشقع عامان كتيرها iska daa wax kastood ku jirta kuma badbaadaysid laakiin maanta wuxuu inaga mudan yahay inaan kulligeen cafino una ducayno tarikadii uu ka tegay iyo qoyskiina inuu ilaahay sabir waafajiyo ilaahay xaqa uu ku hayo ilaahay isaga kadib uuna nafidmaynin kulligeen ducadaasi waa mid maanta uu inooga baahan yahay aan cafino oo aan iswada cafino waa bil ramadaan waxaa maanta aad iyo aad u ah farxad oon odhan karo farxad bay tahay meesha macallin maxamed uu ku dhintay ee hindiya ah waan hubaa janaasada intan leeg iyo inta ku dhowtoona inuuna ka heleen ama laba qof baa aasi lahayd ama laguma aaseena qolo kala qaadi lahayd inuu khayr qabo waxaa muujinaysa khalqiga maanta isugu yimid ee intaa leeg ee ku tukaday ee janaasadiisa isugu yimid hadduu nin shareed yahay intaasi mayna timaadeen saaka taasi markaa waa mid aan leeyahay ilaahay isagana kitaabkiisa hadduu guriga aakhiru u hooyanayahay midigtaa ka siiyo bisha ramadaan iyo fadligeeda iyo waktiguu ku hagaagayna ilaahay baan uga baryaynaa ilaahay inuu qabrigana u waasiciyo dembigiisana dhaafo innagana ilaahay uuna kadib ina fidmaynin sabirkana aan la nimaadno aan cafino aan isa saamaxno maaha isaga keligii inagaba mudne inteena kalena inaynu iscafino waxa inaga dhexeeyaan ku wada hadlayna waa shaq maanta anigu ajishayda ma damaanad qaadi karo markaan hadda ka baxo isagoo la aasin inaan meydahayo inaan ahayn ma caddayn karayo qof waloo inaga mid ah wuxuu u baahan in cafis la helo oon iswada cafino aad baad u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu